madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa soo gaaray magaalada Brussels ee dalka Belgium. Madaxweynaha ayaa waxa uu ka qayb gali doonaa shir madaxda caalamka ay kaga qayb galayaan magaalada Brussels kaasoo wadamada midowga Yurub iyo wadamada soo koraya ay ku shirayaan. Ujeedka shirka ayaa waxa uu yahay in iskaashi uu dhex maro wadamada soo koraya iyo midowga Yurub. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu la kulmi doonaa madax kala duwan oo shirkan ka qayb galaysa. sidoo kale waxa uu halkan ku soo bandhigi doonaa aragtida iyo hiigsiyada dowladda federaalka Soomaaliya iyo guud ahaan qorshaha dowladda ay ka leedahay iskaashiga dhex maraya wadamada soo koraya iyo midowga Yurub. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu sidoo kale khudbad ka jeedin doonaa shirkan isagoo kaga warrami doona horumarada kala duwan ee dowladda Soomaaliyeed ay ku tallaabsatay isagoo oo dul istaagi doona horumarada dowladda federaalka Soomaaliya ay ka gaartay dhinacyada kala duwan. waxa uu dul mari doonaa dagaalka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya shacabka ay kula jiraan qawaarijta isla markaana guulaha dagaalkaasi laga gaaray.